بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فائدة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. waxaan duubaynaa maanta mowduuc aan ugu magac darnay faa'iido ku jirta xadiidta nabiga calayhi salaatu wasalaam. xadiidkaas abi hureyra ayaa warinaya radiyallahu canhu. wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam: almu'minu alqawiyu khayrun wa axabu ila allahi min almu'min aldaciif wa fii kullin khayr. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، وقل ما قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. حديث النبي كمد عليه الصلاة والسلام wuxuu sawirayaa insaanka mu'minka markuu daciif yahay markuuna qawi yahay. maxayna tahay mu'min daciifa, maxayna tahay mu'min qawiya? awalan al-iimaan ayaa meesha yaala. waxaa la yidhi cajzigan la sheegayo ama dacfigan la sheegayo xadiidka ku jiraay waa dacfi nafsiya, maaha dacfiga jismiga. dacfiga nafsiga ana waxay yidhaahdaan waa dacfi muktasaba ay yidhahdaan. waa la bartaa, alcajsu lmuktasab baa la dhaha, cajsi la bartay baa la dhaha. qof baa ku fashilmay arin, adna waad ku fashilmay baad ka dhaadhicinaysaa. marka dambena waxaa kaa dhaadhacaya waxa ma qaban kartid baa kaa dhaadhacaysa. marka almu'min alqawi khayr wa axabu ila allahi min almu'min adaciif. mu'minka daciifu nafsiga ee naftiisu daciifka tahay waxaa laga jecel yahay oo xagga ilaahay looga jecel yahay mu'minka qawiga ah ee naftiisu qawiga tahay. qawadaasi waa maxay baa la yidhi? waa alcaziimatu waaliraadatu, waa doonida iyo go-aanka. qof doonid leh oo go-aan leh ayay u baahan yaa qawi ah, almu'min alqawi ah. qofka go-aanka lahayn oo niyad jab kalena mu'min daciif wey. marka waxaa la yidhahdaa naajix kasta adduunyada iimaan buu u baahan yahay. waxayna yidhaahdaan najaaxu wuxuu u baahan yahay adduunyada aliltizaam. iltizaamkuna waa waajib, waa iimaan la isku waajibiyey wey. qofkani wuxuu aaminay inuu ilaahay uun ka dambeeyo, inuu ilaahay inuu wax qadaro. idan waxaa markaa haddana faa'iidada labaad noqonaysaa markaan soo dhaafnay al-iimaan markaad heshay cajsimay inuu yaalla meesha maaha. saa darteed baa almu'min alqawi loo yidhi. waxaa ku daba xigaysa ixris calaa maa yanfacuk. taqdiiru daat baa la dhahayo naftaada karaamee horta oo sharfi. wuu ka ilaahay ku sharfiyey, nebigu ku sharfiyey almu'minu alqawiyu khayrun wa axabu ila allah. maxaa loo yidhi iyadoo wixiiba mu'mina wa fii kullin khayr bale, labadiinaba khayr baa nigu jira. laakiin haddana almu'min alqawi baa ka fiican mu'minka daciifka, lianna mu'minka daciifka wuxuu u niyad jabay shayaadiinta, muxbidiinta, niyad jabiyayaasha iyo naftiisa uu u hoggaansamay, hawadiisa uu raacay, uu ka sugnaan waayay. waxaa ku daba xiga taqdiiru daat markaa soo dhaafno wa fii kulli khayr nidhaahno, khayr kaama maqno isadkee markaan nidhaahno. waxaa ku daba xiga ixris calaa maa yanfacuk. waqtigaaga ha ku luminin wax ku anfacaya maahine. sidaa darteed ayaad arki qof kasta oo adduunyada jooga oo ku dadaala wixii naftiisa anfacaya adduunyada, aakhiradana uu dhalaaliyey bay ka dhigan tahay. ixris calaa maa yanfacuk. ha iskaga ridin waqtiga waxaan ku anfacayn, waqtiga ha ku qaadin waxaan qiimo lahayn. saa daraaddeed markuu dacfiga nafsigii kugu dhaco waxa weeyaan baa la yidhi adiga oo u jihaystay meel khayr leh ayaad dhaqaajin waay. laba yaroo ragcadood baad dhaqaajin waay. inaad salaatuleyl tukataad dhaqaajin waay. inaad soontaad dhaqaajin waay. haddana waxaa laga yaabaa inaad waqti badan ku bixiso wax aan macno lahayn.
وحولي هينن وحان كريبوري إنا شقدا وقت جيدو أو دن دلاليو وليبا أضي جيدا هدي أي تي تؤباهن مرق إيا هدي تؤباهن تي وقتي إيا تؤباهن فكر وان أقارسين يا بوري هالكي أضم بس لكن مركان صور روحو لا برك عدو قرأ تككر الله إذن بحجرة عجز نفسي نفتع عجز احرص على ما ينفعك واستعن بالله الاستعانة بالله والنجاح الدون كورن لأن التوفيق ده إلهي بهايا سبحانه وتعالى ورسولك عليه الصلاة والسلام يا علي قل اللهم اهدني وسددني دائما اللهم اهدني وسددني وفي الهداية تذكر هدايتك الطريق وفي السداد تذكر سدادك السهم سيزول عليه الصلاة والسلام واستعين بالله استعانة إلهي وحي هيسا كل شيء استعانة أي هيسا هذه بقول لا الهدف لقطه إلهي كون جرجارين ما نقول سوبر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام isagoo oo loo ballan qaaday baa lidhi oo loo bishaariyey inuu ilaahay garab joogsanayo subxaanahu wa tacaala innaa kafaynaaka almustahziin yansuraka allahu wala yansuraka allahu nasran casiiza ilaahay u ballan qaaday subxaanahu wa tacaala iyo haddana uu ilaahay baryay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la dhahdaa dagaalkii beder nebigu intuu istaagay sallallahu alayhi wasallam ayuu fariisan waayey ilaa iyo go'i ka dhacay uu fariisan waayey habeenkii oo dhan buu duco waday daraartii markii la kacayna khalaas wax joojaa la waayey saxaabadii lian xaloo dhan marka waxaa la dhahdaa adigoo lagu ballan qaaday maxaad haddana alla u baryaysaa oo weliba haddana aad rasuulka ilaahay tahay wastacin billah walaa tacjas halkan waxaa la nahiyey cajsiga العجز النفسي يلا نهي عجز النفسي وحوي بلدي كي النبي عليه الصلاة والسلام أولي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل العجز وإنسان عاجز حتى في عمله الدنيوي أي عاجز يعني ولذلك وحل هذا إنسان كبحوجي مخدرات كبحوجي مركو عجز نفسي كبعه أي مخدرات كدون تغفكو لكن انتو جدي هي عزيم لي وقان لي ما دونت مخدراتك لكن مخدراتكم حصم هي وحويان بللي منشد ومفتر في آن واحد وكفر فرعوني سينيا لكن مركو كابحو وحا نغرسا بربر والله بكون ترارسكو اللهم إنا نعوذ من العجز ونبي علي عجز ينهي يعري ولا تعجز عاجزني waxaa doonayso gunta ka gaadh ifraaqul juhdi bay dhadan badlul juhdi wa ifraaqul wus'i ila la dhaba juhdi badan bixi wuscigaagana gunta ka gaadh bimaana wax alla waxaad itaal leeday samee wax alla waxaad itaal leeday samee ifraaqul wus'i wala ta'jaz laakiin in asaabaka shay hadii wax fashilmaan wax ka qaldamaan dhibi ku soo gaadho هي لا تستسلم ولا تيأس هقوسن هيسديبن وحتى هذا قدر الله وما شاء فعل وما تشاءون إلا أن يشاء الله قدر الله وما شاء فعل لماذا؟ لأن لو تفتح عمل الشيطان لو وحي فريسا باب اليأس على هذا استسلامك ولقاه يسكديبن حمانتا وحأقول لي دتال لقولي inaad tiraahdo xumaanta kama fuqi kara inaad tiraahdo waxay ka dhigan tahay inaad ilaahay beeninaysaba ay ka dhigan tahay laakiin markaad xumaanta dadaasho saad uga soo noqon lahayd waxa weeyaan waxaad aamintay xadiiskii waxaad aamintay wadadii saxda ahayd ay ka dhigan tahay ilaahay na waafaqo billahi tawfiiq. Assalaamu calaykum wa rahmatullah.